nabi muuse calayhi salaam markuu arkay labadii dumar ahaa ee markaa dacafada ahaa ee arigooga markaa ka celinayay ceelka waa kii ku yidhi maxaa idinku dhacay marka u sheegana waa kii u waraabiyey su-aal kale iyo sheeko kaluu la galayna ma jira geed intuu iska hoos fadhiistay ayuu yihi rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ilah waxaad ii soo dejiso oo khayra waan u baahanahay waxaan uga socdaa waxa ay tahay aabaheed markay u tagtay gabadhii maxaa dhacay waa tii u warantay waa kii ku yidhi iigu yeedh aabba buu ku yidhi waxaan uga dan leehay qaabkeebay ugu timid sideesa qur-aanku uga waramay allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi فجاءته إحداهما تمشي على استحياء مدود باتمد تمشي على استحياء iyadoo ku soconaysa على استحياء waxaad moodaa xishoodkiiba intay googlatay inay ku socoto waxaa sidoo kale jira marka qaarkood haddii aad ku istaagto tamshi hadaad ku istaagto oo aad ka bilowdo على استحياء قالت إن أبي حشوت على استحياء قالت iyadoo xishood ku sugan waa maxay tiri ama si xishood leh maxay u tiri hadalka u fiirso xaabaka laga waramay waa maxay waa qadiyatu alxayaa fi alqawl sumarti waxay tiri qaalat ina abi yadcuuka liyajzaka ajra ma saqayta lana hadalka markay lahayd maxay ku tiri cala istixyaa ama jaat wahiya tamshi cala istixyaa iyadoo si xishood ku dheehaya u socota labadaba markaa daliil bay u tahay labadaba ama halkaa ku istaag ama halkaa ku istaag yani inuu qofku si ixtiraam leh oo qadarin leh sidii islaamku sheegay dhulka u maro sax ummadda ilaahay isagoon isku kibrinayn صحيح inuu hadalka markuu sheegayo si qiimo leh oo sharaf leh oo hadalkiisa u sheego ما شاء الله عليك الله يبارك فيك waxaad xasuusataa marka ولا تمشي في الأرض مرحا waxay taasi inoo xadidaysaa socodkii waxaa sidoo kale aad xasuusataa وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا salaam waxay taasina tusinaysaa qowlki qowlkii sidoo kale waxaad xasuusataa وقل لعبادي يقول التي هي ahsan أحسن وقولوا للناس حسنا يعني هذا هو الإسلام الجميل هذا هو الإسلام الجقايلة إيو مركع أيضا إيو دعايدا إيو عدة يدون طبعا كسو في شيء ليس من أخلاق الإسلام أما قف شيخ شيغان إياه أما قف المشيغان إياه كسو في شيء أما عد كلمة كسو في شيء ليس من أخلاق الإسلام